السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير شرفت المركز تدريبك جوكتان كسر دواد يوتيوب جنالك زينب عينب. سيدا هور ولا سعوتين ولا لقى قالي جنالك ما عوان كبدل صرت قروح ذو حان وبحش زينب عينب. أنا بمركن وجدت هاي إنه أنت سكسي بلارناضو جنالك إن شاء الله دوني أنا إن نصوب من ليه برنامجي بدن أكل الدبل بإذن الله الكريم. intaa kadib walaalahayga qaaliga ah maanta barnaamijkeenu waxa waaye ma ku haysataa dhibaato maqaarka oo ku qalqalan oo ku bahdilan oo ku rafaadsan oo dhaalku ah dhibaatadaas haday ku hayso ma isweydiisaa markaad aragto qof maqaarkiisu dhalaalayo iftiimayo qoyan yahay qurux badan yahay oo mataqaanaa yani dhibka adigu ku haysto kale aanan haysanin ma la yaabtaa mana isweydiisaa sababta qofkaasiyatid ama sirta ka dambayso inuu sidaas noqdo adigana aad sidan tahay. haddaba walaalahayga qaaliga ah haddaad doonaysid inaad wax badan ka ogaatid arrintaas iyada ah iyo xalkeedaba fadlan ila daawo video oo dhammaystiran idinkoo mahadsan. maqaarka jirka bini'aadanka ah waa organka ama xubinta ugu weyn jirkeena, sidaa daraaddeed si aad uga talisid caafimaadkeeda ama quruxdeeda waa inaad mar walba siisaa daryeel u gaar ah. sababta keenta qofka bini'aadanka maqaarkiisa inuu rafaad iyo qalqaleel iyo bahdilaad ay ka muuqatana waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay inuu qofkaasitid ka qabo problem beerka ama beerka macnaha oo kala sun ay ka buuxdo, xeerta ay ku badatay iyo waxyaabahaas oo dhan. waxaa kaloo laga yaabaa in ay ku yartahay vitaminka loo yaqaano vitamin C. isla mar ahaantaasna qofkaas waxaa kaloo laga yaabaa in uu leeyahay balwadaasitid oo maxaana sida sigaarka oo kaleeto iyo wixii lamid ah. sigaarka oo kale smokinga waa kan ugu daran macnaha waxyaabaha maqaarka bahdila dadku ma fahansana oo haddii aad u fiirsatid inta badan dadka sigaarka cabo oo kaleeto maqaarkooda waa bahdilan yahay, waa qalqalan yahay, waa rafaadsan yahay. rafaad macnaha ka muuqdo waxaa ka muuqdo aging baa ka muuqdo oo wejigooda uu soo kodkodudmay. haddii aad u fiirsatid isagoo da'yar qofka isagoo da'yar baad arkaysaa wejigoo kodkodudmay, bahdilaad fara badan ay ka muuqato. sababtana waxa waaye waxaa jirta qofka bini'aadanka ah markuu sigaarka cabo in uu taas ay u keento vitamin C jirkiisa inuu hoos u dhaco, iska badaa inuu kusoo kordhiyay tii uu haystay yareed ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo, taasna marka ay keento inuu qofka maqaarkiisii baabao ama bahdilmo. intaa markaan kasoo tagno waxyaabaha keeni karo ama sababaha yacni kugu keeni karta inuu maqaarkaaga bahdilmo markii laga soo tago waxaa laga rabaa oo haddii aad doonayso maqaarkaaga inuu qurux badnaado oo ka baaba'ana rafaadka iyo silca number 1 waxaa laga rabaa inaad isticmaashid vitamin C-ga. vitamin C-ga waa inaad isticmaashaa weliba iyadoo mataqaana kaniini ah oo kaleeto inaad isticmaashid markii laga soo tago cuntooyinka vitamin C-ga ku badan yahay isticmaalkooda adigoo sameyn kara taasna haddana waxaa sii haboon weliba inaad mataqaana kaniinigiisa oo kaleeto haddaad helaysid inaad isticmaashid weliba 1 miligram inaad maalin kasto daily basis I mean yani maalin kasto inaad isticmaashid. aniga waxaan isticmaalaa kaasaan isticmaalaa maqan kaamirada inay qabanayso in kaleeto balse kaasa isticmaala waa nooc maxaa la dhihi jir sida saas oo kaleeta biyaha ku dhex ridaysaa yani way shar ay dhehaysaa mugta markaasna waxa waaye markay milanto ayaa cabaysaa waana 1 miligram halka waxaa ku qoran 1000 miligram 1000 miligram ka yar haba soo gadaninbo mastalina macnaha saasay u samaysan tahay u badankooda macnaha markii meelaha farmashaasha tagtid 1000 way garanayaan macnaha qiyaasta ugu fiican dadka qofka bini'aadanka jirkiisa yani uu qaadan kara ma u baahan yahay. intaa markii laga soo tago tan labaad oo laga rabo waxa waa inaad isticmaashid oo isticmaalkeeda aad badsatid. xataa vitamin C waxaa sameyn kartaa iyadoo serum ama oil ahna waa marsan kartaa. cabitaanka horta waa must yani inaad kaniin ahaan iyadoo aad isticmaasho haddana si uu maqaarka usii qurux badnaado iyadoo saliid ama serum ah ayaad isticmaali kartaa. qodobka labaad waxaa يعني مهمة أصلاً إن استعمال وحلو يقان الجلوتاثيون هذا ظهر مقلين وحواي وباورفول أنتي أكسيدنت وكاس وصودا يو أما لجهله حبين كستو أو جركينا كمدا وحنا تهفى إذا إن مقار كسيسو إفتين كإذا دلال كإي قروح ذا يديها عين سيسو إسلام مرأهان تاسنا وحي هوسو لكتا مادة لو يقانو ميلانينتا horana waa idinku kusoo sheegay oo waxa waaye waxa ku sababa waaye inuu jirkeena ama maqaarkeena kalarka macnaha siiso waa maadada kalarka qofka bini'aadamka maqaarkiisa madow cadaan wuxuu yahay kalarka siiso taasoo markii ay badato ama qofka ku badato inta badan waxa dhacda
inuu qofkii madmadow ama haaro ama dhalnes maqaarkii oo qalqalal iyo bahdilaad iyo rafaad inuu qofka biniaadamka yeesho marka taasay hoos u dhacdan waxaa imanaysa inuu maqaarkaaga qurux noqdo dhaldhalaalo haarihii iyo rafaadkii iyo madmadowgii iyo bahdilaadii iyo lisan rifankii maan dhihi jiray ee kaa baaba'do marka iyadoo kaniinigaas aad u muhiim u yahay mararka qaarna waxaaba farmashiyaasha qaar lagu gado hadda ka hor mar isticmaali jira hadda ma isticmaalo laakiin waxaa jirta iyada iyo vitamin C oo isku jirto yani mafahant labadooda isku jirto L-glutathione iyo vitamin C oo isku jiro ayaa lagu gadaa kaniini ah markaasna waxa waaye maasha Allah tabaaraga noqonaysa haddii aad isticmaashid maqaarkaagana dhalaalkiisa iyo dheehaysa adaa yaabi doona waxaa kaloo jirta faa'iidooyin tiro badan oo laga helo kaniinigan L-glutathione ay ka mid tahay in ay kor u qaado difaaca jirkaaga immune functionka sidoo kale waxaa ka mid ah inay nadiifiso beerka ka nadiifiso sunta iyo ka saarto xeerta waxaa kaloo jirta in ay ka hortagto aging processka qofka maqaarkiisa inuu cimilo degdego oo kaleeto iyo waxyaabahaas oo dhan marka faa'iidooyin kaloo badan ayay u leedahay jirka L-glutathione oo halkan lagu soo koobi karin waayadan dambana dad badan ay fahmeen isticmaalkeedana ay badsadeen qodobka saddexaad waxa waa inaa isticmaashid kaniiniga loo yaqaano melatonin kaniiniganetid weliba inaa isticmaashid habeenkii markaad seexanaysid maxaa yeele waxay u leedahay faa'iidooyin badan jirkaaga oo waa powerful antioxidant waxaana kaloo ay ku siinaysaa inay maqaarkaaga qurxiso ay kaal arag ka dhigto habeenkii hurdada oo kaleeto inay kaa saacido inaad seexatid marka qodobka u dambeeya oo isagana qodobka kale oo isagana muhiimka ah halkan yaa ilaawin waxa waaye hurdada inuu mataqaanaa qofku seexdo habeenkii in ku filan maxaa yeele quruxda maqaarka iyo qofka biniaadamka maskaxdiisa isaga dhanba waxa waaye qofku markuu habeenka hurdo ku filan u helo markaas maasha Allah quruxdaada lama soo koobi karo so qodobka kale oo isagana muhiimka ah taas waaye qodobka u dambeeya oo isagana very important waxa waaye in aad maqaarkaaga qoraxda ka ilaalisid qoraxda yani waa waxa ugu daran oo laisla ogaado waayadan dambe oo haddaad u fiirsatid kareemada dhan waa lagu daraa mataqaanaa waxyaabo ay maadooyin qoraxda ka hor istaagaysa sun block aa lagu daraa sababtoo ah yani waa la ogaaday qoraxda waa waxa ugu daran oo qofka biniaadamka maqaarkiisa eberka dhigta baabaysa haddii noqonid aging iyo haaro iyo rafaad iyo silac so marka waa very important inuu maqaarkaaga mataqaanaa kareenka qoraxda markaad u bixaysid inaad isticmaashid oo qoraxda aad ka ilaalisid qodobka kale asagana muhiimka ah oo lagaa rabo waxaa waa haddaad doonaysid maqaarkaaga qurux badnaado ama uu noqdo maqaar qoyan oo noolna waxa waa inaad basatid cabitaanka biyaha oo maqaarkaaga aad dehydrationka ka ilaalisid inuu yani biyo la-aan ku dhacdo sidoo kalena inaad isticmaashid kareemo waxaa jiro oo mataqaana moisturizing ah oo maqaarkana biyaha soo celisa qoyaankeeda soo celisa moisture siisa soo kareemadaas oo kaleeto oo ina iyagana isticmaashina waa very important si maqaarkaaga qaleelka uga baaba oo uu noqdo maqaar qoyan oo nool oo healthy ah oo caafimaad leh oo shining ah oo maasha Allah dhammaan akhyaar sharafta meel kasta adduunyada ka joogtaan maanta barnaamijkeena intaas ayuu ku ekaa waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ka faa'iideyn kana hesheen fadlan haddii aad ka heshay like tahanaga ilaawin sidoo kalena inaad kusoo muujisid commentiga wax alaala waxa aad doonaysa inaan kaga soo hadlo videoga xiga iyo wixii su'aal aad qabtid sidoo kale haddii aad nagu cusubtahay fadlan hanala dhaafin ama ha ilaawin inaad subscribe ka saartid gambalalkana furatid inta aan video lamid aan ku kulmi doono dhammaantiin waxaa idinkaga tegayaa kheyr iyo baraka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu